وحلقة سدحات اتحنها كن هبين يا هبين هدي أتهم في كواد يا كنا كان صوب وقنيصو فضلا سبسكرايب كتابو لايك تنصار كم بلا لكن دارو سيكوزو قارن مقالة ذي دعسبي أنا أدي في قلين يقول نقطها يمي كان داو شوال waxaynoo bilaabmaya habeenkii koowaad Shahrazad waxa ay sheekadii ku bilowday waxa ay soo gaadhay boqorow inuu jiray nin taajir ahaa oo xoolo badan iyo carruur lahaa wuxuuna ahaa nin aamin ah sidaas darteed ay dadku xoolahooda ugu dhiiban jireen maalinkii dambe ayuu ninkii safar galay wuxuu socdaba markii dambe wuxuu harsaday geed si uu ugu nasto cabaar markii uu geedka fadhiyay ayuu kolay uu watay kala soo baxay xoogaa timir ah isaga oo bilaabay inuu cuno wuxuuna timirta lafteeda ku tuuray meel u dhow halkii uu fadhiyay wax yar kadib waxa agtiisa ka kacay boodh aad u weyn boodhkina waxa ka soo dhex baxay cifriit aad u weyn oo gacanta ku sita seef qaro weyn aadna u af badan cifriitkii sidii uu soo socday waxa uu kor yimi ninkii taajirka ahaa waxaanu ku yidhi waan ku dilayaa sida aad wiilkayga u dishay markaas ayuu ninkii taajirka ahaa yidhi sidee ayaan wiilkaaga u dilay mabaan arkine cifriitkii wuxuu yidhi markaad timirta cunaysay laftii aad tuuraysay waxay wadnaha kaga dhacday wiilkayga oo isla goobtii ayuu ku dhintay sidaas darteed qisaas ahaan ayaan kuu dilayaa markaas ayuu taajirkii yidhi anigu kamaan warqabin inuu wiilkaagu meesha joogay ee iska kii cafi hase yeeshee jinnigii waa u diiday wuxuuna ku adkaystay inuu wiilkiisa uga qisaasi doono markaas ayuu ninkii taajirka ahaa yidhi cifriit yahow waxa aan gacanta ku hayaa xoolo badan oo ay dad leeyihiin kuwaas oo ammaan ahaan la iigu dhiibtay waxaan leeyahay xaas iyo carruur ee ii fasax si aan qof kasta xaqiisa u soo siiyo waxaana kuu ballan qaadayaa markaan qof kasta xaqiisa soo siiyo inaan kuu soo noqon doono si aad wiilkaaga iga qisaasato hadalkaygana ilaahay ayaa ka wakiil ah markaas ayuu jinnigii ka ogolaaday sidaas ayuu ninkii ku soo baxay waxa uuna yimi magaaladii uu deganaa isagoo isugu wacay dhammaan dadkii iyo ehelkiisa si uu qof kasta xaqiisa u siiyo markuu dhammaan dadkii xaqoodii siiyey ayuu u sheegay siday wax u jiraan iyo xaalku halka uu marayo markaas ay dhammaan qoyskiisii iyo eheladiiba ay wada ooyeen iyaga oo sagootiyey aadna uga xun sida ay wax u dhaceen ninku maadaama uu ballan qaaday si uu ballantiisa u oofiyo markuu qof kasta xaqiisii siiyey ayuu soo baxay isaga oo soo aaday halkii uu jinku kula ballansanaa wuxuu soo socdaba isaga oo kafantiisii wata markii uu yimi geedka hoostiisii ayuu iska fadhiistay wuuna iska ooyey xoogaa kadib isaga oo ooyaaya ayaa waxaa meeshii soo maray oday wata deero wuu salaamay ninkii wuuna waraystay wuxuuna ku yidhi maxaa keligaa meeshan bahalgaleenka ah ku fadhiisay adiga oo ooyaaya ninkii taajirka ahaa ayaa uga sheekeeyey siday wax u dhaceen markaas ayuu odaygii go'aansaday inuusan ninkan ka tegin ilaa uu ka ogaado sheekadani halka ay ku dhammaan doonto iyaga oo meeshii sidii u fadhiya ayaa waxaa waddadii soo maray nin laba ey wata iswaraysi kadib ayay u sheegeen siday wax u jiraan markaas ayuu isna go'aansaday inuusan meeshan ka tegin isaga oo qisada dhammaadkeeda ogaada mooyaane iyaga oo sidii meeshii u fadhiya ayaa haddana waxaa jidkii soo maray nin baqal wata iswaraysi kadib markay u xog warrameen ayuu isna go'aansaday inuu sheekada dhammaadkeeda ogaado afartoodii oo meeshii sidii u fadhiya ayaa waxaa u yimid cifriitkii oo seeftiisii qarada weyneed wata wuxuu soo qabsaday ninkii taajirka ahaa si uu wiilkiisa ugu qisaaso qoortana ka jaro markaas ayaa waxaa la hadlay odaygii deerada watay waxa uuna ku yidhi jinni yahow taajkii boqorradow haddii aan kaaga sheekeeyo sheekadana dhex martay aniga iyo deeradan oo aad ka hesho sheekada ninkan dhiiggiisa 3 meeloodoo meel ma ii hibaynaysaa markaas ayuu cifriitkii yidhi hadday ii cajabiso haa waan kuu hibaynayaa markaas ayuu odaygii sheekada ku bilaabay sida tan cifriit yahow deeradaad u jeedaa waa xaaskayga ahna in adeertay iyada oo yar ayaan guursaday muddo markaan isqabnay oo aanay wax carruur ah ii dhalin ayaan samaystay jaariyad yar waxaana ii dhashay wiil aad u qurux badan wejigiisuna u ifaayo sidii dayax 15 ah waxba yaanan war kugu daalinine maalintii dambe ayaan safar aaday markaan baxay ayay naagtayda oo sixirka wax ka taqaanay sixirtay wiilkaygii iyo hooyadiisba iyada oo ka dhigtay sac wiilkana ka dhigtay dibi kadibna waxa ay u dhiibtay ninkii xoolaha ii qaabilsanaa markaan muddo kadib safarkii ka soo laabtay oo aan reerkii u imi ayay naagtii ii sheegtay in jaariyadii dhimatay wiilkaygiina la waayay meel uu jaan iyo calub dhigay anigu arrintaas aad iyo aad ayaan uga murugooday maalinkii dambe ayaa waxaa dhacday in la gaadhay ciiddii udxiyada aniguna si aan u udxiyaysto oo xoolo u qalo ninkii xoolaha ii qaabilsanaa ayaan ku idhi sac aad u buuran ii soo qabo markaas ayuu ii soo qabtay sacii jaariyadda ahaa markii la ii keenay ayuu sacii raftay oo ooyey anigoo yaaban ayaan qalay laakiin waxba way ka soo bixi waayeen keliya wuxuu noqday lafa iyo maqaar arrintaas aad ayaan ula yaabay markaas ayaa ninkii xoolaha ii qaabilsanaa ku idhi waar ii keen dibi maadaama sacii hore hilibba laga waayey waxa uu ii keenay wiilkaygii dibiga ahaa
markii la ii keenay ayuu isna ooyey oo raftay. Inta aan ka yaabay ayaan ku uri warigada dibigan ee bal mid kale ii keen. markii sheekadu ay halkaa maraysay ayay Shahrazad ogaatay in subaxii la gaaray. markaas ayay sheekadii iyo hadalkii u banaanaa joojisay. walaasheedii yarayd ee Dunyazaad ayaa tiri, alla maxaa ka macaan badan abbaaya sheekadaada, waxaan jeclaan lahaa inaad noo dhammaystirto. Shahrazad waxa ay tiri, haddii boqorku ii ogolaado inaan noolaado, sheekadan waan dhammaystiri doonaa habeen dambe. sidoo kalena waxaan idinka sheekayn doonaa sheekadan mid ka sii fiican. markaas ayuu boqor Shahriyaar is yidhi, waa sheeko xiise leh, ha dilin ilaa ay sheekada ku dhammayso. sidii ayuuna ku go'aansaday inuusan dilin ilaa ay sheekada ka dhammayso. subaxii markii la gaaray waxaa yimid wasiirkii gabadha dhalay oo kafanteedii wada aadna u murugaysan. balse marka uu ogaaday in gabadhiisii nooshahay wuu la yaabay, aadna ugu farxay. boqorkii shaqadiisii ayuu aaday. dad buu xilal u magacaabay, kuwo kale ayuu xilal ka qaaday. gabarkii markii uu dhacayna waxa uu ku soo noqday qolkiisii hurdada isaga oo doonaya in xaaskiisu sheekadii u dhammaystirto. habeenkii labaad baa la gaaray. habeenkii labaad markii la gaaray ayay Dunyazaad ku tiri walaasheedii Shahrazad, abbaayoy maad noo dhammaystirtay sheekadii ninkii taajirka ahaa iyo cifriidkii iyo wixii kala qabsaday ninkii odayga ahaa iyo deeradii. markaas ayay Shahrazad tiri, jacayl iyo sharaf ayay ii tahay inaan idiin dhammaystiro haddii uu boqorku ii idmo. boqorkii oo mar horeba sheekada isku sii diyaariyey ayaa yidhi, noo wad sheekada oo dhammee. markaas ayay Shahrazad tiri, waxa ay soo gaadhay boqoroo markii uu odaygu arkay inuu dibigu ooyaayo inuu ninkii xoolaha uga mas-uulka ahaa ku yidhi, waa dibigan iga wad oo mid kale ii keen. cifriidkiina wuu la yaaban yahay sheekada yaabkeeda iyo sida ay wax u socdaan. ninkii odayga ahaa waxa uu yidhi, sayidkii jinniyadow, waxaas oo dhan markay dhacayaan naagtaydu wayna daawanaysay waanay arkaysay, waxayna lahayd waa dibiga ha celinine qalwa mid buurane. laakiin anigu dibiga eegmadiisa markaan ka naxay ayaan iska sii daayay, waxaanan ku idhi ninkii xoolaha ii qaabilsanaa, dibigan iga wad waan ka yaabanahay. subaxii markii la gaadhay waxaa ii yimi ninkii xoolaha ii qaabilsanaa, wuxuuna igu yidhi, bushaarayso. markaas ayaan ku idhi, oo maxaa dhacay? wuxuu igu yidhi, shalay markii aad dibiga iga wad igu tiri waan waday, waxaanan geeyey gurigayga. gurigana waxaa ii joogta gabadh aan dhalay oo iyada oo yar sixirka baratay. markii aan dibigii guriga geeyey oo ay aragtay ayay wejiga ka daboolatay, kadibna qosashay, haddana way oyday. markaas ayay igu tiri, aabbo maxaad noogu soo gelinaysaa nimankan ajaanibta naga ah annagoon ogeyn? aniga oo yaaban ayaan ku idhi, oo aaway ninkan aad sheegayso? midda kale maxaad la qosashay oo haddana aad la oyday? waxay igu tiri, dibigan aad u jeedo waa wiilkii sayidkaaga, waanu sixran yahay, waxaana sixirtay naagta uu aabihii qabo. taasi waa sababta aan u qoslay. sababta aan u ooyeyna waxa ay tahay sacii la qalay waxay ahayd hooyadii. anigu markii aan hadalkaa inantayda maqlay waan aamini waayey, adiga ayaana kuu imi. markaas ayuu odayga yidhi, jinniyahow markii aan maqlay hadalka ninkii ii qaabilsanaa xoolaha ayaan degdeg gurigiisii u aaday. waxaanan u tegey inantiisii oo aan weydiiyey, ma runbaa waxa uu aabbahaa ii sheegay? markaas ayay igu tidhi, haa waa runtiisa, dibiganna waa wiilkaagii, waana jeex beerkaaga ka mid ah. anigu waan iska ooyey, waxaanan gabadhii ku idhi, haddaad wiilkayga sixirka iiga furto waxaan ku siin doonaa maalkayga oo dhan. markaas ayay gabadhii igu tidhi, anigu maalkaaga dan kama lihi, 2 shardi uun ayaan wataa. haddii aad ii samaynaysana wiilkaaga sixirka waan ka furayaa. shardiga koowaadi waxa uu yahay inaad wiilkaaga marka hore ii guuriso. ka labaadna waxa uu yahay inaan naagtaada sixro, waayo kama aamin qaba dhagarteeda. markaas ayaan gabadhii ku idhi, intaas aad sheegtayba waan kuu samaynayaaye sixirka wiilka iga fur, waxaana kuu sii dheer inaan ku siinaayo hantideeda oo dhan, naagtana sida aad doonto ka yeel. markay hadalkaygii maqashay ayay soo qaadatay dheri yar oo meesha yaalay, waxayna ku shubtay xoogaa biyo ah iyada oo wax ku akhriday. kadibna biyihii ayay waxay ku firdhisay dibigii, waxayna tidhi, dibiyahow, haddii allaah adiga oo dibi ah ku abuuray ha isbedelin oo dibigaaga iska ahow. haddiise aad sixran tahay ku soo laabo abuurtaadii hore idanka ilaahay. markaas ayuu dibigii dhalaalay, wuxuuna isku bedelay insaan. waan ku booday oo laabta ayaan geliyey markaan arkay inuu wiilkaygii yahay, waxaanan ku idhi, allaan kugu dhaarshe iiga sheekay siday wax u dhaceen. markaas ayuu sheekadii bilow ilaa dhammaad iiga sheekeeyey iyo waxay ku samaysay naagtaydii in adeertayda ahayd. wiilkaygii waxa aan u guuriyey gabadhii, iyaduna waxa ay sixirtay naagtaydii oo deeradan aad arkayso isu beddeshay. aniguna waan iskaga soo tegay dhulkii oo dhan si ay wiilkayga iyo gabadhaasi nabadgelyo ugu noolaadaan. anigoo jidkan maraaya ayaan arkay ninkan meesha cidlada ah keligii fadhiya ee ooyaaya. kadibna marka aan waraystay ayuu qisadii qabsatay iyo siday wax u dhaceen iiga sheekeeyey. jinniyahow, hadday sheekadeedu ku cajab gelisay, ninkan dhiiggiisa 3 meeloodoo meel ii hibee. markaas ayuu jinnigii la yaabay sheekadii ninka odayga ah iyo deeradii ka dhexaysay, wuxuuna ku jeesay deeradii isaga oo yidhi, ma runbaa wuxuu sheegayo odaygani? madaxa ayay ruxday deeradii iyada oo leh, haahey. markaas ayuu jinnigii yidhi, wallaahi waa sheeko cajiib ah, wayna i cajab gelisay, ninkan dhiiggiisana 3 meeloodoo meel ayaan kuu hibeeyey.
markuu jinnigii hadalkaas yidhi ayaa waxaa hadlay ninkii watay labadii ey wuxuuna yidhi jinniyahow haddii aan aniguna kaaga sheekeeyo sheekadeeda oo ay ku cajab geliso ninkan dhiiggiisa 3 meeloodoo meel ma ii hibaynaysaa jinnigii waxa uu ugu jawaabay haddii ay cajab geliso waan kuu hibayn doonaa markaas ayuu ninkii labada ey watay sheekadiisii ku bilaabay sayidkii jinkow waxaad ogaataa in labadan ey ee ila socda ay yihiin walaaladay oo anigu 3 ku ahay aabbahayo wuu dhintay wuxuuna dhaxal ahaan nooga tegay 3,000 oo diinaar waanu kala qaybsanay dhaxalkii oo mid kasta waxa ku soo hagaagay 1,000 diinaar anigu qaybtaydii waxaan ku furtay dukaan alaab ayaan soo iibsan jiray waana sii iibin jiray walaaladayna xoolahoodii way la safreen anigoo uga digay safarka iyo dhibkiisa balse dheg iima jalaq siinin waxayna maqnaayeen muddo sanad ah laakiin waxa ay soo laabteen iyaga oo gacmo maran oo aan waxba soo helin halkaas aynu ku soo koobaynaa xalqadeena maanta inta xalqada xigta aynu ku kulmi doonno waxaad